annual voter education week waa waqti dadweynaha wacyigelin la siin wacyigelintaas oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ama doorasho ka hor ha imaadeen ama waqtiga doorashada ama doorasho ka dambe ha imaadeen wixii doorasho ka hor imaada waa la wada garanaa oo waa sidii registration iyo sidii wacyigelinta ayada naftinkeeda oo voter education la yiraahdo diiwaangelintu way socotaa maalin kasta isniin ilaa jimca xafiisyahayna way ka socotaa sub county oo dhan bay xafiisyo aan ku leenahay Gaarisa marka xafiisyo ayaga ha tagaana isdiiwaangeliyaan meesha laga diiwaangelin marka yaanay sugin inta laga gaarayo isdiiwaangelin guud maxay leeyahay waqti badan waxa dhacaysa waqtiga asaga markii la gaaro in adiga diyaar u ahayn ama meel kale aad ku maqan tahay ama wax ku dhaafaan aad muhiim u ah dadweynaha waxa muhiim in ay fahmaan in codkan ay gacanta ku haystaan wuxuu yahay codka ayaa silaaxad u ah runtii anagana waxa waan aad ba maartay horta inay dadka fahmaan waaye xafiiskanito oo IEBC ga la dhaho inuu xafiis muhiim u yahay anagana nasiib ilaahay baa nasiib fiican siiyay maxaa yeelay wiilasha ka shaqeeyaan meeshaas ayada kulligood waa Soomaali cid hadda oo inaad English aad taqaan ama inaad Swahili taqaan ku xiran ma aha mid ku xiran taas ma aha qof walba tagi kara laakiin waxa nasiib darro ah anaga Soomaaliya hadaan nahay xafiisyadii inay ba anaga noo adeegayaan uma haysano marka dabcan hadii waxa dakhliga wadanka lagu qaybsanayo uu yahay numbers oo adigana asaas ku xaqirayso waxa ii soo baxday meeshaas inuu ninka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed inay fahansaneenbo muhiimadda uu kaarka leeyahay